سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. waxaan ku jiraa duruustii gaagaabnayd oo ramadaanka fadaaishiisa iyo axkaamtiisa ka hadlaysay dulmarkoodii. bishan ramadaan sidaan hore u sheegnay dadkuna wada og yihiin waa bil aada iyo aada u qaaliya. ilaahay nafaxaad buu leeyahay, catiyaad buu leeyahay, bixinno dadka qulubtooda uu ku shubo oo u horseedaysa sakiina, deganaan iyo xasilooni, howlo noocaasa u horseedaysa, kula soo degaysa. taas nebigu isagoo ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey inuu yidhi: ina lirabbikum caza wajal fii ayaami dahrikum nafaxaad buu ilaahay leeyahy. zamankiina gudihiisa ilaahay nafaxaad buu ku leeyahay ee catiyaadkii waayo, bixinadii. taas way ka duwan tahay waxyaabaha khayraadka ilaahay uu bixiyo oo xisiga ah, wuu ka duwan yahay oo aan qaabilo sida caafimaadka, sida cunada, howlaha noocaasa. tan way ka duwan tahay oo tan waa mid qulubta ku degaysa, dabeedna qulubta ku islaaxayso. hadday islaaxsanaydna islaax iyo darajooyin ay qulubta kusii ziyaadsanayso. nafaxaadka noocaas ah yuu ilaahay zamanadiina gudahooda uu ku leeyahay, taasoo allatii tanzilu ina lirabbikum caza wajal fii ayaami dahrikum nafaxaat fatacaraduu lahaa buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. war isku bandhiga xilliyada ay soo degayso kuwa mudan markaa inay ku degto noqda. tacaraduu lahaa macnuhu waa sidaa: lacala axadakum an tusiibuhu minha nafxa. waxaa laga yaabaa in markaas qofkii hal nafxa nafaxaadka mid ka mid ah ay asiibto, qalbigiisu ku islaaxo, dabeedna nafxatun, dabeedna laa yashqaa bacdaha abadan, dibkaas uusan u daraysano nin saciido abid uu ahaado, sidaa uu ku janno tago, yaa markaa macquul noqonaysa. laakiin waa isku bandhigtaan baa loo baahan yahay. sida xilliga ninka beeraha qota masalanba uu dhulka usii qodo xilliga uu roobka filayo oo roobka inuu soo da-ayo loo malaynayo, xilliyada hadda aan taagannahay oo kaleeto. dadka dhulkay sii qotaan, cagaf bay sii geliyaan si biyaha roobka markuu soo da-o ciiddu markaabay u qabsato oo ciiddu u nuugto. haddayse dhulku iska adag yahay, in biyuhu sidaa u dulmaraan ay dhaafaan baa dhici karna markaa. sida ninkaasu xilligaas uu isugu bandhigayo raxmadda ilaahay, naxariista oo roobka ah, sidaa oo kaleeto adinkuna isugu bandhiga. waxaad arkaysaa ganacsatada masalan, waxaad arkaysaa xilliyo gaar ah oo ay ku beegaan ganacsigooda, halkaasoo faa'iidooyin fara badan ay ka helaan, dad fara badanna ay wax ka iibsadaan. yaa dhacda maka, waa sacuudigaan ka shaqayn jiray, yaan ogaan jiray maka dukaamo waxaa jira aan la furinba ilaa maalmaha xajka la joogo keliya la furo, inta kale takrada laga sii bixinayo. maalmaha xajka yaa badeecadda ayi nooc caalamka inta laga keeno halkaa la daadinayaa. maalmahaas yaa fawaa'id aada u fara badan oo xaddhaaf ah yay ka heli jireen, oo kirooyinka ay ku bixiyeen iyo shaqaalihii lacagtoodii iyo ka badanba ay uga soo baxayso. marka maalmahaas yaa dukaamadii la boor qaadayaa si xujaydu wax uga iibsato faa'iido badan looga helo. waxay isku bandhigayaan kuwaas markaa fawaa'idda
iyo lacagtaa fara badan soo gelisay isku bandhigayaan. annana marka waa inaan isku bandhignaa waxaa la yidhaahdo ramadaanka nafaxaadka soo degaya waa inaan isku bandhignaa. bishaa khayr ka badan oo casharka hore aan uga sheekeeyey in la laalaabayo la laalaabayo ajarada iyo acmaasha thawaabkooda aad loo badinayo. allahu mustacaan. weliba muminiintu dadka muminiinta aadka u wanaagsanaa kuwa allaha nagu daree bishan aad bay ugu farxi jireen imaan soo gelideeda, way isku diyaarin jireen si xoog ah. jacaylkii ayada u qabaan waxay dhalisay in ay sii jeclaadaan oo ay ku dadaalaan cibaadada ilaahay xoog ugu dadaalaan. bisha iyada ka horeysa oo hadda aan ku jirno akhirka ah yay qiimeyn jireen oo markaas cibaadaysan jireen oo ay jeclaayeen. maxaa yeelay soon baa kusoo xiga, ramadaan baa kusoo xigta. soonkay badin jireen sida anas bin maalik laga wariyey radi allahu tacaala canhu. nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ayu siyaam afdal baa layidhi. qaala shacbaan, maxaa yeelay litacdiimi ramadaana waay. umuna caaisha radiallahu canha iyadana waa la weydiiyey, waxay tiri kaana axabu shuhuur ilaa rasuulillahi sal alla alay wasalam an yasuumuu shacbaanka inuu soomo uma yasulu biramadaan. yacni bil aan la fardi yeelin oo nabigu uga soom badnaa shacbaan maba jirin baa layidhi. saas maxaa macnuhu yahay inuu markaa weyneynayo shacbaan weyneynayo ramadaan awgii uu usii weyneynayo. annana saasaa nalooga baahan yahay in bisha aan ka faa'iidaysano. shayaadiinta la xidhxidhayo wadadii naloo gogol xaarayo, qodaxdii iyo dhagaxii wixii shayaadiintiina qashqashaadaysay oo dhammaan markii nala ka hor leexiyo. hadda wadadii markaa cibaadadii baana loogu furay. sida kuu muuqato markaa inaan ka faa'iidaysano oo cibaadada aan xoogga saarno. arrinkaasuu ilaahay ku talagalay markuu waddada saas noogu xaareeyey oo markaa caqabaadkii ibliis iyo duriyaddiisii ilaahay uu naga horqaadayey. musxafkaaga boorka ka jaf, dadaal. a'immada hore qur'aanka aad iyo aad iyo xoogga u saari jireen, qur'aan akhriska aad xoog loo saari jiray. wax kastoo noo soo jiidaya nafaxaadkaas khayrka ah inaan markaa isku diyaarino oo aan ka shaqeyno yaa loo baahan yahay si aan u noqono marka nafaxaadku soo degayaan addoommo saalixiin ah oo wanaagsan oo khayr qaba oo khayr ku dhex jira. dabeedna nafaxaadkaas quluubta islaaxinaya ay nagu degaan. arrinka aan ka shaqeyno allahu mustacaan. badeecad fara badan waa inaan kasbanaa ramadaanka ta aan ka shaqeyno iyadana oo qur'aan akhriska aan badinno, sunnooyinka aan badinno, sadaqada aan badinno. sadaqada reerka laftiisa inaad u waasicisid markaa waxa aad siin jirtay inaad u waasicisid adiga sadaqa kuu tahay oo marka aad u dherdhergaan. qur'aan akhriska aad loogu dadaalo. imaamu shaafici radia allahu canhu waxaa la sheegay inuu 60 khidmo uu ramadaanka dhammayn jiray. khidmona maalintuu akhrin jiray, midna habeenkuu akhriyi jiray. 60kaas marka iyada u dhammaatay yuu ciidi jiray baa layidhi. sadaqada waa daruuri. jaarka baahan, qaraabada baahan, markaa kiiskiis bariisa, sokor ah, wax noocaas aad ku tuurtay caagad saliid ah, qasacad timira. hay-ad un yaa laga sugin. nin weliba isaga hay-ad noqon kara oo markaa wuxuu karo inuu bixiyo qof walba yaa loo baahan yahay. in khayrkaas anagoo badsanayna oo saa qur'aanka iyo sadaqadii iyo khayrka u badsanayna haddana shartii iyo xumaantii aan ka dheeraano yaa loo baahan yahay. weliba gabdhaha inay guryahooda fadhiyaan ramadaanka inta lagu jiro, rag iyo dumarba. horta taasaa aad u wanaagsanba inaan guryaha laga bixin yaa aad u wanaagsan si markaa cibaadadaadii ay isku tarto u badbaado oo markaa indhihii wixii lagu eegayey, dhegihii wixii laga maqlayo xumaha ahaa, afka wixii lagu hadlayay xumaha ahaa. ileen laba qof meel fadhida markaad aragtid dad bay ka sheekaynayaan. haddii wadooyinka la fadhiisto haweenkaa la eegayaa, haweenku raggay eegayaan. halkaas foolxumo iyo dembi baa ka imaanaya, nuqsaan yaa ku dhacaysa markaa tawaabkaagii iyo ramadaankaaga gelaysa. marka ninkii awooda inuu markaas bishaa ramadaan guriga iska fadhiyo
oo nafaxaadka isku bandhigo iyo gabadha awoodaba oo biilkooda ilaahay u fududeeyey inaanba guriga laga bixin iyo arrintaas igula habboon tahay rag ba wanaagsan oo sidaas sameeyana waaban aqiinayba iyadoo la badbaadinayo cibaadada ajarkeeda la badbaadinayo way marka gabdhuhu hadday baxaan laftooda suuqyada aadaan inay is asturaan ooy isruxin ooy edab u socdaan ooy is udgin ooyan ragga fidnayn soo sooman ayan fidnaynin u dhoolla caddaynin u qosqoslin la kaftamin xubnaha halista ah ayan qaaqaawin oo xubnahooda dhammaanba ayan qaaqaawin gabadho gabageedu waa wada halisi zuyina linaasi xubu shahawaati min annisaa'i baa ilaahay ku bilaabay raggu markaa kama adkaysan karaan fiirada haweenka ilaa ninka ilaahay dhowra mooye marka iyaga gabdhaha laftooda inay ragga u soo jiidin inay indhaha la raacin oy ku caawiyaan in soonkooda badbaado cibaadadooda ay badbaado ayan ku waajilaafin baa loo baahan yahay waxaa kaloo nafaxaadka in laisku bandhigo ka mid ah in bisha ramadaan aad xalaal quudatid waxa jeebkaaga soo geliyo uusan ahaan laaluush aad xafiis ama ummadda ka soo qaadatay lacag aad soo boobtay wax markaa xaaraan a noocay noqdaanba inayna noqonin oo xalaal aad quudatid ileen cibaada ku jirta cibaadada in laga aqbala doonaysay marka arrinka xalaal quudashadana waxay soo jiidaa in ducadaadii cibaadada la aqbalay kuu soo jiidaysaa arrinkana in lagu dadaalo yaan boorinaya allahu mustacaan bisha guud ahaan in xumaha laga dheeraado wanaagga laga shaqeeyo waaba bil sideedaba laylin nafta la laylinayo nafta la laylinayo oo wanaagga lagu laylinayo kheerka lagu laylinayo nafta lagu laylinayo inay dhafarto inay cibaadada ku dadaasho laylintaa waxay faa'iido badan u sii yeelanaysaa weliba oo ziyaado ah nimanka markaa qayila kuwa sigaarka cabba inay bishaa ka faa'iidaystaan haddii maalintii waxaa laga soomo hadda habeenkana raacay oo cibaada isku mashquuli oo ka naso waxaa markaa waxay u roon yihiin aan la garanaynin laa yusminu walaa yuqni min juucin ah sida jaadkii sigaarkii madaradooda jeebkay dhibayeen caafimaadkay dhibayeen jaliiskay dhibayeen laftaada adiga laftaada sumcadaada bay kuwaas u daran yihiin oo foolxumo u ah maxay nin weynu sigaar buufinaya nin weynu markaa caleynta cunaya mausan naftiisa ka adkayn yaa ummaddu leeyihin oo ummadda laftooda yuu dembi u soo jiidaya marka in bisha ramadaan laga faa'iidaysto ileen maalintii oo dhan haddii nafti lagu layliyey gaajiya haraad hadda habeenkina ku layli inaad sigaarkii jaadka iyo wixii la mid ah aad ka adkaysatid oo sidaa markaas aad u sawootisay kuwaasna dibna ayan kugu soo noqonin way suuroobaysaa haddaad ku talageshid oo qalbiga aad ka niyeysatid ilaahay sidiisaba waxa khayrka ah oo qalbiga laga niyeysto wuu ku fududaynayaa taa shak kuma jiro allah nagu anfaco intaanaan ka dhedheeraya ma rabo dhammaantii allah nagu anfaco waxa aan sheegay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala وبركاته في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح لينا شعار ونلقى البركة في الأسحار يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سنة صيامنا ما بنلعب